kulan wacan ugu wanaagsan idil ahaantiin bay khiyaartaha wadana gala xidhiidhay meel kasta oo dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteena faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeena aan diiradda ku saari doonaa warar xasaasi oo haatan naga soo gaadhaya gebi ahaanba geeska Afrika qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah nuxurkii ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed uu kaga hadlay khudbadiisii oo meelo badan taabanaysay ayaynu daawadayaal kaga hadli doonaa qodobada ugu muhiimsan ee uu taabtay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya wasiirka madaxtooyada ee dowladda deegaanka Soomaalida oo sheegay in dowladda deegaanka Soomaalida ay wareejin doonaan xilli uu ku tilmaamay in xuduudihiisa iyo ammaankiisuba ay sugeen waxa kale oo daawadayaal la filayaa in madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida uu ka soo muuqan doono isku shaandhaynta golaha wasiirada ee heer federaal taasi oo ay suuragal tahay in la keeno dowladda deegaanka Soomaalida madaxweyne cusub haddaba madaxweynahaasi uu noqon doona dhanka kale madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamuud Cumar ayaa gabi ahaanba qaadacay in ciidamada liyu booliska iyo maleeshiyaadka dowladda deegaanka Soomaalida loo diro dhulka Soomaaliyeed isagoo sheegay in haddii ay ka qayb qaataan colaad ay ka abuurmi karto ummadda Soomaaliyeed dhexdeeda waxa kale oo daawadayaal barnaamijkeena aan ku qada dhigi doonaa xoogagii la oran jiray TPLF oo soo karar qaatay iyo khilaaf xoogan oo cirka isku shareeray oo u dhaxeeya dowladda federaalka ee Itoobiya iyo waliba qowmiyadda Tigreega barnaamijkeena waxaan ka maqnaan doonin Masar oo lahjadeedii badashay iyo shacabka Soomaaliyeed oo sheegay inay Itoobiya isaga filan yihiin haddii ay weerar ku soo qaado dhanka kale ciidamada ilaalada ee midowga Yurub ee ku sugan xeebaha dalka Soomaaliya oo sheegay inay ilaalin doonaan gabi ahaanba xeebaha dalka Soomaaliya muddada ay ku sugan yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa garoowe ka dagay isagoo ka qayb gali doona caleema saarka la filayo in uu ka dhaco magaalada Garowe sidoo kalena waxaa jirta siyaasiyiin raba inay halkaasi kaga dhawaaqaan madal ka soo horjeeda dowladda federaalka oo uu hogaamin doono Saciid Cabdullaahi Dani haddaba lucba siyaasiya waxay carabtu yiraahdaan ma ciyaari doona madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya taasi oo ku kala furfurahayo aan ilaahdee kutlada siyaasiyiinta doonaya inay ka soo horjeedaan aan ilaahdee dowladda uu hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya haddaba xogihii ugu dambeeyay ayaynu daawadayaal barnaamijkeena ku qada dhigi doonaa barnaamijka waxay kala qayb gali doonaa saaxiibka shida iyo waliba gooniyo asagoo inta badan ka faalooda xaaladii ugu dambeeyay ee aan ilaahdee dalka Soomaaliya iyo waliba Itoobiya ee ku soo dhawow Dr. Shidow waan dhawahay saaxiibi nuxurka hal iyo labo muxuu ka hadlay ra'iisul wasaaraha aad baynu ugu dhagtaagaynay xalay khudbadiisa marka hal iyo labo adoo soo kooyay muxuu ka aad iyo aad baad u mahadsan tahay Colonel Faragodow ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo khudbadiisa si weyn loo dhowr sugayay dadka Itoobiyaanka iyo Soomaalida oo waayadan dambaba ayaga Itoobiya dhaxdooda ay ka talan tahay si weyn bay isha u hayeen waxyaabaha uu ka hadli doonana si weyn ba ayay dhagtu ugu taagneed laakiin qaabka uu hadlay iyo meesha uu ka abaaray ayaa noqon weyday meeshii ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed laga filayay wax ka jira gudaha dalka Itoobiya oo dhab ah oo in badan uu iska indhatirayay ayuu ra'iisul wasaaruhu ka hadlay kuna sheegay Itoobiya inay dhibaato ama dhibana ay tahay waxyaabaha uu ka hadlay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed waxaa kamid ah inuu dalka Itoobiya uu sagxadda taabtay dhaqaalihii Itoobiyana ay taayir la rogi leedahay ama ayna dhaqaaqi karin dhaqaale la'aan aad u ba'an oo sheegay in ay dalka gudihiisa ay ka taagan tahay iyo cunaqabatayn dhaqaale oo dalalka adduunku ay saareen sida reer Yurub iyo Mareykanka iyo bangiga adduunka IMF dhammaan wuxuu sheegay dalka Itoobiya inay ku soo qaadeen weerar la dagaalanka dhanka dhaqaalaha wuxuu sheegay dalka Itoobiya inay gaajo iyo macaluul badan ka dilaacday amni xumo badan ay ka jirto oo ku sheegay siyaasiyiin xukunkiisa aan ku qanacsaneyn ama gabi ahaanba ayagu doonayeen inay xukunka marorsadaan inay u horseedeen dalweynaha Itoobiya wadadii burburka laakiin wuxuu yiri annagu geed gaaban iyo geed dheerba waxaan u fuulaynaa sidii Itoobiya aan ku badbaadin lahayn wada jirkeedana aan ooga shaqeyn lahayn annagoo wax walba dhanka nabadda ka aadayna su'aal laga weydiiyo leeyahay Itoobiya xoog wax ma ku raadinaysaa in kastoo la magac dhabin dal aad weeraraysan xoog wax uga qaadanaysaan Itoobiya wax ay xoog ku raadinaysaa ma jirtaa la yiri iyadoo aan heshiis laga gelin oo colaad keeni karta ama dalkan Itoobiya dagaal iyo burbur u keeni karta ma jirtaa ayaa waxa uu yiri Itoobiya markasta nabad ayay ka shaqeynaysaa nabad bayna wax ku raadinaysaa adduunkana nabad ayay kula noolaanaysaa bir sidoo kale gobolka Tigray ayaa wax laga weydiiyay wuxuu yiri gobolkaasi waan ogsoonahay inuu gobol go'doon ku jira yahay xuduudihiisu ay aad u adag yihiin oo qowmiyadaha deriska ah ay colaad ka dhaxayso dadka Tigrayga ay suurtagal ah in xuduudahaas ka baxaan sida Canfarta iyo Axmaarada ayuu sheegay iyo Eritrea saddexda xuduudood oo leeyihiin saddexdaba inay ka jirto colaad dadka gudaha gobolka Tigrayna ay dhibaato wajahayaan
laakiin wuxuu sheegay inay siyaasiyiinta Tigraygu ayna si dhab ah u qaadanin bir waaqac dhabta gobolkooda ka jira iyo gaajada iyo macaluusha ka jirta in ayagu sabab u yihiin markii arrintaasi waxaa lagu fasiray in ra'iisul wasaaraha Ethiopia iyo Tigray ama xogagan TPLF ee jamhadda TPLF ee gobolkaasi gacanta ku haysa inuu hadda khilaafkooda soo cusboonaaday mar kale oo hadda ay fooda isdari doonaan waxaan ognayn maalinimadii shalay ahayd inuu tagay magaalada Addis Ababa Mike Hammer ergeyga gaarka ee geeska Afrika dawladda Mareykanka u qaabilsan oo sheegay TPLF inay hadda ay gabagaba marayso maartay heshiiskii lagu galay Pretoria iyo Nairobi waqtigiina uu gabagaba yahay loona baahan yahay in la qanciyo Tigrayga ama TPLF la qanciyo si ayna mar kale colaad waqooyigaas uga bilaaban ilaa dawladda Ethiopia waxay la dhacaysaa baliin dagaalka ay kula jirto xogaga faana ama qoomiyadda Axmaar dagaalka gobolkooda ka socda marka haday Tigray ku soo biiraan dagaalkaasi dawladda Ethiopia xukunkeedu uu soo gabagabaya Abiy Ahmed aad soo ku joogo way adkaanaysaa sababtoo ah Tigraygu taadkada military hayaan ka Axmaarada uu ka casrisan yahay wayna ka awood badan yihiin oo waaba nimankii Ethiopia oo dhan oo isla socoto 100 milyan ah oo daacad ka ah dagaalka oo ilaa ka Soomaaliga ee feer jooga iyo Oromka xuduudka ugu dambeeyay jooga ay dhammaan colaadii Tigray loo hayay iyo TPLF 27 sano ee dalka Ethiopia ay maamulaan xuquuqdii loo hayay iyo nin walba gobolka Tigray orod ku tago ka soo argoosay yiri Axmaarada qaadooyinka iyo biraha soo urursatay iyo gebi ahaanba wixii gobolkaasi yaal mashiintii Eritreaanka gurtay ayaa u barbar dhigi waayay laakiin maanta oo Eritrean ku garab taagnayn baa leeyahay Axmaarada ku garab taagnayn Soomaaliya ku garab taagnayn Ethiopia ku garab taagnayn oo Abiy maanta ku taageersan aan jirin inaad maanta Tigray aad iska xallin weydo waxa leeyahay waa xukunkaada ayaa duulaan ku tahay marka wuxuu yiri haddaan la isu tanaasulin nabadda dalkan laga wada shaqeynin ayna waqti isa siinin ayna dhibaatada dalkeena si dhab ah ayna u wada wajinsan wax uga qaban lahayn Ethiopia ma isnaanaysa bir marka ra'iisul waxaad moodaa hadalka Tigray ka soo yeeray Mike Hammer uu dhagto ugu sheegay Abiy Ahmed uu ku yiri TPLF xogkaaga haya uu ku yiri ilaa waxaan ogsoonahay xukunka dawladdu kama shaqeeyo gobolka Tigray waa gobol iska madax banaan nimankaasi madax banaanina mayna ku dhawaaqin dawladdan lama shaqeeyaan oo waa niman go'doon ku jira gobolkoodii waa niman ciidan oo hubaysan waaya looma geli karo dawladda Ethiopia geed gaaban geed dheer bay u furtay inay ku qabsato gobolka Tigray way qabsan weyday wixii lagu xaliyay nabadda ee xabad ayna isku soo ridin heshiiska wuxuu ah Pretoria Nairobi ka dhacay ahayd in la nabad geliyo xabad joojin 6 bilood doorasho ay Tigray ku galaan madaxweyne cusub ay doortaan Getachew ku simeel gaar ahaado Getachew xukunkiisa dhamaaday ninkii dictatorka ama ninkii kaliitaliska khabiirka ahaa waa ninkii Gabrasiyon Gibre Mikail ayaa fadhiya Makale oo godkiisa weynaa dhax fadhiya amminkan maalinka Abiy la doortay iyo maalinka maanta oo marayna 2024 Abiy iyo Gabrasiyon ma is arag oo madaxweyne gobolka Tigray ma dhammaan saarin waxa isku dambeysay maalinka Tigray ay sabab ka hooleeleen ee gobolkooda aadeen ayaa sabab ugu dambeysay isaga Abiy soo farfarsan ugu dambeysay labadaan ee saakal u kala irdhoobay ee saa u kala tagay saydan ugu wada noolaan kara marka Tigray laba wada u furan Tigray laba wadada u furan horta saddex wada furan hadii Abiy uu soo dago saddex wada furan laakiin hadda waxay u baahan tahay laba bas inay Tigray wajahayaan ayay u baahan tahay saddexda wada furan waxa waaye haduu Abiy tanaasulo oo gobolka Tigray ka maqan ee Eritreaanka Axmaarada ay xoog ku haystaan halkaasi 200,000 ee Axmaara iyo Eritreaanka soo ay xoog kaga haystaan Tigray hadii Abiy ama awood ciidan tu adeegsado oo gobolkaas soo celi ama tu diblomaasiyad Tigray gacantooda u geliyo waa laga yaabaa inuu dhaho federalismka si shaqeeyo hal wada noolaado wasiiraan nasiin heer sare xuquuqdii Ethiopia ku leedahay mad helaysan miisaaniyadii nibad helaysan Tigray dalka Ethiopia muuqa oo ku reeyaan jireen hadii ay ra'iisul wasaaraha lahayn inay ku xigeen yeeshaan inay talaska military gaashaandhiga awood balaaran ku inkastoo gaashaandhiga hadda ay ka tirsan oo wasiirka gaashaandhiga uu Tigray qoomiyad Tigray ka soo jeedo laakiin uu yahay rag Abiy uu gacanta ku hayay ku shaqeysanayo waa Tigray ka naxayn TPLF ayna keensan laakiin Tigray waxa rabaan waxa waa inuu TPLF noqdo ninka matalay ninka xisbiga TPLF ka tirsan waa nin fikradda ma la haysto waa wuxuu ku shaqeynayaa fikradda shacabka Tigray ay ku shaqeynayaan nin ma aha la jiifiyana banaan la toosiyana banaan ma aha waa nin fikradda TPLF iyo shacabkiisa ku shaqeynaya mid ma aha fikrad Oromo ku shaqeynaya fikrad Axmaar ku shaqeynaya laakiin ninkan hadda wasiirka gaashaandhigu waa nin fikradda Abiy ku shaqeeya Tigray ila leynayay wasiirka halkaas fadhiyo ma uu hadli karo waa nin la haysta waa Tigray ninkaas ma matalo waa Aadan Faarax iyo Axmed Shido kale waa ragga dadkooda intii la baabiyo dhulkooda la qaatay hada ma taxseen karaan uu Aadan Faarax waa ninka 250 qof oo ciyaal iyo haween 400 bay ahaayeen 450 qof oo rayid ah ayaa magaalada laga soo doortay isagoo xilbaana yaa lagu dilay afar baa dishay albaanay lama aasay laba bari oo halka yaaleen
inuu xataa tacsiyo waa loo diiday hadda awood